fasaxna waa lay diiday labadii iga yaraana dhakhtarka wada yaalaan kaas oo askariga ah oo xidhan isagii dhaawaca lagu xidhay maxaan dhahday waxa weeye jeelka qaar ka mid ah ciidamada Somaliland ee ku sugan gudaha Gooja Cadde ayaa waxa ay sameeyeen gadood iyagoo waliba sheegay in arrin ku saabsan askari ka tirsan beeshooda oo dhibaato u geystay Muuse Biixi Cabdi in la xalliyo haddii la xallin waayana ay ka soo bixi doonaan Gooja Cadde ciidankaas oo aad u tiro badan ayaynu barnaamijkeena ku wadaagi doonaa muuqaalkooda iyo waliba iyagoo hadlayo iyo xaaladda ninka ay sheegayaan oo faahfaahin ka bixin doono adna aadan oo maalmihii u dambeeyay baraha bulshada si weyn u haysatay waxa ay soo bandhigtay buugeeda iyadoo kaga hadashay in qaar ka mid ah ehelkeeda iyo waliba dadka iyadoo u dhow inay gaalo ay yihiin xageeba ku dambeeyeen garaadadii tagay magaalada Muqdisho xaalad halis ah ayaa laga soo sheegayaa sirdoonka dalka Djibouti oo halkaasi tagayna waxa ay doonayeen in la kulmaan garaadada balse waa laga diiday barnaamijkan ayuu qayb ka noqon doonaa madaxtooyada Puntland ayaa waxa hareeriyay ciidamada mucaaradka ee ka soo horjeeda Saciid Cabdullaahi Den barnaamijkeena buu qayb ka noqon doonaa muuqaalka sheergaasartina la wadaaga haddii aan ku bilowno qaar ka mid ah ciidamada Somaliland ee ku soo Gooja Cadde ayaa waxa ay sameeyeen gadood iyagoo waliba diidan qaabka loo dhaqmay askari ka mid ah beeshooda bal marka hore ila daawada muuqaalka askarta aad fara badan waxa weeye waxaanu codsanaynaa oo aanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi nin askari oo maxaan dhahday waxa weeyaan ku dhaawacmay shil ku helay maxaan dhahday waxa weeyaan meesha la yiraahdo Caynaba meydii hore maxaan dhahday waxa weeyaan oo halka qasaare yar oo maxaan dhahday waxa weeyaan dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ku geystay ninkaas oo askariga ah oo xidhan isagii dhaawaca lagu xidhay maxaan dhahday waxa weeyaan jeelka oo xidhan aadan maxaan aadan Cabdullaahi Cali waxaanu codsanaynaa mudane madaxweyne annagu horta marka hore shaqadayadii baanu haysanaa waxaanu ku jiraa goobaha iyagii difaaca maxaan dhahday waxa weeyaan cid ugu abaal kaga dooni mayno wax shaqooyinkayagii aanu xaq u lahayn maxaan dhahday waxa weeyaan anana codsi ah baanu wadnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland inuu noo tixgeliyo codsigayaga oo la sii daayo ninka dhaawaca ah ee la yiraahdo aadan Cabdullaahi Cali Dubjir in la sii daayo intaasaan doonaynaa anigu waxaan ahay Cabdirasaaq Cabdullaahi Cali inanka xidhan walaalkiis baan ahay kii isaga hoos uga yaraa dhakhtarku yaala goobtana ku dhaawacmay 6 meelood oo ku jabay hadheegaygan taaganisi ka urida ka yahay waa walaalkay waa Maxamed Cabdullaahi Cali booliisku leeyahay qori saaray ma wadalka ma jooga fasaxna waa lay diiday labadii iga yaraana dhakhtarka wada yaalaan waana wii muuqan waayo darawal kale nooma joogo ka kale gaandariga waa sidaas leeg arrinta hore ee inanka maxkamaddii labaad rafaanka u qaadanay madaxweyne waad og tahay oo may dhicin waana laga joojiyo wasiirku isaga ilaa hawsha waa dhammaynaynaa sii daaya oo maragyadii naga soo kala celiyey sanadka bacdi buu inanka xidhan yahay kuwii dadku ka dhintay waxba looma cadaalad yeelin oo dee waxba looma odhan annaga wixii idii haynaama cid kale idii haysa annaga waxba nalama saarin oo nalama odhan maxkamaddii labaad rafaanka u qaadanay waxba namay saarin haddii intaasi aan kaga soo laabano askarta codkooda oo aad arkayseen bal haddana aan u laabto saaxiibkay Gooni oo arrimahan si weyn ula socday Gooni askarigan ay sheegayaan nimankan qaabku wax u dhacay meesha uu ka dhacay iyo waliba waxaad inoo sheegtaa dhacdadan iyada ah xilliga ay dhacday iyo ciidamadan gadoodka ay sameynayaan horta Cukaasho waa maasan tahay askarigan arrintiisa ma ahna hadda shalay iyo daraadna ma ah waa sanadkii hore 2022ka waqtigii maxaa la yiraahdaa sanadkii hore May 18 markii loo dabaaldegay baawarta lagu dabaaldegay gaari ka mid ah ayuu askarigan waday waana sanadkii hore tii hadda 2023 ma ah isaga waa askari buu waday oo diiwaan gashan ciidamo ayaa saarna gaariga uu waday marka gaarigii uu waday mintii dabaaldegyada la sameynay gaariga la wareejinay ayuu gaariga rogmaday markuu gaariga rogmaday ilaa 4-5 askari ku dhimatay marka ku dhimatay asagana dhaawac ayaa soo gaaray arintii marka way soo jiitantay askariga soo dhaawac isbitaal ayaa la geeyay markii dambana ciidamada Soomaaliya isbitaal ka soo saaray waxay go'aan ku gaareen in dadka qoyskiisa oo beelaha garxays oo asoo ka dhashay inay bixiyaan diida beesha habar jecel inay diida bixiyaan ay macnaha amar ku bixiyaan waxay sheegay marka ninkan maadaama uu qaranka u shaqeynayo Soomaaliland sida warku dhigan sababta macnaha loo weydiinayo beesha leedahay sababta loo weydiinayo diida maxay tahay soo askari dawladda u shaqeynaa maahan soo asagu maxaa la yiraahdaa wax kama maysan dhicin waa asagu naftiisa halis soo maysan gelin haddana markii dambe waa la murmay adiga arrintii way soo jiitabaysay ninka marka risaalka lagala baxay waxaana la geeyay Hargeysa
halkaas ayaa lugaha silsilad looga xiray lugihiisii ku baqbaqeen muddo fara badanna ay lugti ay fasfas qaaday oo ku jiraday ilaa hadda lafteedu uu mataan xanuunsan yahay layiri oo Hargeysa u jooga hadda uu xanuunsan yahay oo lugtii caabuqa ayaa ku sii weynaaday oo muddo fara badan ay lugtay nabaradii mar soo kacisay marka lugtiisa halis waxay ku sugan tahay in la gooyo waxaa hadda marka ka dhidhiyay qoyskiisa dad ka mid ah oo isbitaalka ku booqday isla markaana gaarsiinaya daawooyin oo lacagaha qarshaad ku baxaya si gooni u bixinaya waxaa leeyahay kharashkiina iyaga bixinayo diyadin iyaga laga rabaa marka arrintan maalin dhaweyta waxaa ka dhacday muran waxaana beelaha kasoo jeeda askarigan ay ku baaqeen in dagaal gooja cadde askartooda ku dhimanaysa saraakiishooda ku dhimanayaan sabab ay ugu dhimanayaan aysan jirin hal askari oo maxaa la gaari gadiyana lagu rafaadinayo isbitaalaadka magaalada Hargeysa ugu dambeyntii waxaa lagu baaqay askarta meesha ku jirta gooja cadde ee u dhashay beesha warjac inay kasoo baxaan gabi ahaanba markay kasoo waxay dhaheen marka maanta baaqa uu dambeeyay ayaan u direynaa Muuse Biixi iyo maxay Salawaan Gaal iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo Nuuxtaan kulli gabi ahaanba waxaan u direynaa baaq degdeg ah si maxay dhaheen arrintan go'aan uga gaara haddii ka gaari waayaan waan kasoo baxeena anagoo askarteena 1200 askari gaarayso gabi ahaanba waa isaga soo baxeena dagaalka waxaana ku laaban doonaa guryaheeni laakiin ma laga yaabaa bixitaankooda inay dhanka la iska dhiibaan maadaama dhanka Soomaaliland aysan ku soo noqon karin hadda 1500 askari hadda laguma degdegi karo oo hadda maanta dagaal hadday ku qaadaan oo Soomaaliya dhexdeeda xabad ay ka dhacdo fashilka dagaalka horta gobolka soo lagu jiray waa dhamaana mees ku dhamaana hadda aynu ogtahay goori laga qabsaday Soomaaliland wadada go'doon ay tahay laakiin hadii mar oo qabsi Soomaaliya dhexdeeda oo bilowdo fashil ay noqonaysaa halganka Muuse Biixi oo ku damacsanay la socodka ku qabsadana meesha ay ka baxaysaa marka 1500 askari waa leena ma dhihi karo warna kuma qaadi karo waa arrin ku culeyskeeda marka waxa laga yaabaa inay ku laabtaan deegaanada ka soo jeedeen inay SSC u galaan suuragal ma aha sababtoo SSC ma cafinayso waa leenaysaa sababtoo in muddo ay dagaalamayeen marka xaaladda hadii soo dhiibaan waa laga yaabaa inay mataan soo dhaweeyaan hadii soo dhiibaan hadda qaab ay ku dagaalaan ciidan mataan ka soo horjeeday oo hadda soo dhiibay waxay u laayaan mataan ma jirto ma jirto laakiin mar hadii 1500 askari ay soo goosato horta Soomaaliland fashil ay noqonaysaa oo hadii SSC u galaan ka sii daran waa xaalad halis oo ka sii fogay noqonay laakiin ilama ahin inay dhanka SSC u wareegi doonaan maadaama qoysaskoodii dadkii ka soo jeedeen weli ee dhanka ay Soomaaliland ay jiraan laakiin godood ay sameyn karaan inay meesha ka baxaan ilaa wada hadal arrintan lagu dhameeyo oo la soo dhaxgalo saas ay xal ugu gaari karaa si kale lagu gaari karaa hadii kale ciidamadu way baxayaan maalmaha soo socda sida ay sheegeen adna aadan oo wada garanaysaan inta badanna wax caruur ayada aan dhalin ayaa waxa ay sheegtay in familkeeda ay inta badan ay yihiin gaalo sida buugeeda ku daawacan mar kale ee gooni horta waxaa la yaab leh dadka baraha bulshada inta badan waxay leeyihiin adna aadan ilmo ma dhalin ayadana qoraalkeeda buugga waxaa ku jira in ilmaheeda ay ahaayeen gaalo habarteed inay gaalo ahayd hooyadeed inay gaalo ahayd marka dambe buuggeeda waxyaabo cusub tres marka marka dambe buuggeeda waxyaabo cusub ku soo bandhigaysa mar waxay leedahay aabahay muslim ahay maxaa la hooyadeena gaal ahayd labadiina waa xushmeynaya mar waxay leedahay dhowr diimood ayaan xushmeeyaa mar waxay leedahay habartay gaal ahayd marka waxay leedahay ilmiga gaalaha dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin ilmo ma wada dhalinba marka waxyaabahaas oo la is dhex marayo jahwarar ay keenayaan ayada marka dadka ayadana muslim tahay ay dadka sheeg gelinayaan xilin qof intaasoo barnaamij ku meereysanayo intaasoo diin sheeganayo oo leeyahay intaasoo diin xushmeynaya diinta islaamka diin ahayn oo la xushmeeyna ma jirto to qofka mar muslim yahay diimaha kala soo ku xushmeey ma jirto marka hadii saas ay tahay shaki ayaa ayada la gelinayaa buuggan oo socda qoraalkiis marba qayb ayaa loo soo gudbinaya waxa la leeyahay wuxuu ku raali gelinaysaa ama ka dhadhicinaysaa Ingiriiska gumaysan jira Soomaaliya waliba qaybta waqooyi inay macnaha u sheegto qaabka u noolayeen iyo maxaa la taariikhdeeda iyo qoyskeeda inay gaalo ahaayeen waxyaabo kale ayada ku damacsan tahay ay rabtaa inay u gudbiso marka marka dambeeso gaaladaas ay buug u qortay laakiin Soomaali uma qorin marka buugga dadka akhriyay ayaa marba qayb soo gudbinay maanta qaybta ugu dambeysay waxay noqotay in habarteed iyo ilmaheeda gaalo ay ahaayeen marka arrimahaas oo dhan soo tarayaan marka dambeeyna anaguna waa soo gudbi doonaa duleera garajaamac garaad Ismaaciil Ducaale oo ah garaadada ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana ka tagay magaalada Laascaanood ayaa waxaa la sheegayaa inuu kulamo la qaadanayo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo waliba dowladda Djibouti ay codsatay in ay la kulanto garaadka iyo waliba wafdiga uu hogaaminayo balse ay diideen inay la kulmaan haddaba xogahaasi ayaa mar kale waxaan dib ugu celinayaa saaxiibkay gooni
horta garaadada magaalada muqdisho tegay waxay la kulmeen si hordhaca madaxweynaha rasaaraha kulankooda kadibna meel hotel ayaa la dejiyay hotelka ayay degnaayeen waxaa la sheegayaa 2 xubnood oo Djibouti ka timida oo sirdoonka Djibouti ka tirsan inay magaalada muqdisho soo gaareen isla markaana codsadeen inay garaadada la kulmaan arrintaas markii garaadadu ka biidiideen waxaa la sheegayaa marka inay isku day ay sameeyeen nimankaas Djibouti waliba ay ku bushkarayeen hay'adda NISA iyo dadka madaxda ka ah Imaan Salaad in macnaha mar walba garaadada lala kulansiiyo marka Soomaalida waxay dhahdaa marka kulanka maxay ka maagayeen marka ma inay dilaan bay rabaan ma dili karaan dowladda gacanta ku haysa maxay ka maagayeen kulanka la qaaray dilid ma dili karaan oo hada sabab ay ku dilaan garaadada ma jirto police military la wareeyay amnigooda police military gacanta ku haya waan aadan loo suuga yahay marka dowladda Xashin Maxamed oo ka taxadartay marka arinta markii la isku qabsaday in meesha la kulmo waxa soo dhax galan leeyahay Cabdikariim Guuleed iyo rag kale siyaasiyiin waxayna sheegeen garaadada qofka rabaan in la kulmi karaan qofka rabaan ay diidi karaan oo bari magac xumo dowladda Soomaaliya u soo hoyin karto in faraha laga qaado banaanka laga maro marka garaadada arinta sida ay ku fashilantay Djibouti marka danta ay ka lahayd hadda u soo laabano Djibouti waxa lagu xamanaa inay Soomaaliland la socoto marka waxa laga yaabaa inay iska bariyeen lahayd ay garaadada ka dhaadhicin lahayd inaysan shaqo ku lahayn barnaamijka Soomaaliland si fiican haddaba warar ay sheegay in Djibouti hubka waaweynaa ay keentay oo ka qaadanayso calankeeda ku qornaa in ay ka qaadanayso goojacada deegaanada ku dhow si hadhow ay fashil ugu galin halkaas barnaamijkeena daba ku qaban doona taas barnaamijyada daba u shaqeyn doona marka Djibouti inay iska bariyeelayso arrimahaas oo dhan ay inay rabto iyo inay si ka waxyaabo kale ka dhaadhicisa garaadada inay raadinayso ayaa laga yaabaa laakiin mar walba ay noqoto ku fashilantay arrintan mas'uuliyadda dowladda ay saaran tahay garaadadan waxaa la sheegay in qofkii rabaa la kulmi karaan qofka sarabina aysan la kulmi karin antagana dhankaasi Puntland waxaa la soo baxay idan xoo sheegayo in la xiriiriyay madaxtooyada maamulka Puntland barihii la soo dhaafay waxaa jira isqabqabsi oo dhanka doorashooyinka ah Sayid Cabdullaahi Dalan waa tii doorasho qof cod oo qabtay deegaano fara badan oo ka qabtay laakiin gobolka Nugaal iyo caasimadiisa Garowe waxba kama qaban oo kama suuro gelin waxaa marka ku sugnaa meeshaasi Aranjan ayaa ku awood badan waxaana la rabay in laga qabsado maxaa la yiraahdaa barnaamijkan in doorashada qof cod ay ka dhacdo ayadoo wali wada hadal u socdo aan lagu guuleysanin laakiin madaxtooyada irdaha soo galo dhan waxa xirtaakay ciidamo gadoodsan isla markaana ka tirsan ciidamada Aranjan iyo Asadiano ayagoo markaas sheegay inay waxyaabo badan ay tirsanayaan haddana waxyaabaas la xalinayna inay suuro galeen marka waxyaabo ay tirsanayaan wali lama weydiinin laakiin jidka ay soo galo madaxtooyada Garowe way xiran yihiin gabi ahaanban way hareeraysan tahay wada hadal iyo odayaal iyo waawaan ku dhex jirto aan wali ku guuleysan inay kala qaadaan ciidamadaasi waxaana laga baqayaa in xabad meesha ka dhacdo maadaama ciidamo kale sida Cabdullaahi Dalan taageersan inay ayagu soo weeraraan ciidamada BMBSF ka ayagoo laba kala qaybsan iyo BMBF ciidamada la yiraahdo labadaas ciidan ay ugu awood badan Puntland labadana Mareykanka ayaa tababaray oo ciidamo aad u tababar marka in arrintaas isqabqabsi weyn ayaa meesha ka jiro waxyaabo ciidamada diidan yihiin iyo waxa ka soo baxa go'aanadaas in warkeena dambe ku faaqidi doona insha Allah aad weyn waad mahadsan tahay daawadayaal waxaa intaas kusoo koobaynaa barnaamijkan kooban ee ku dulmeerin xaaladaha geeska muuqaalka shargaas habtinana la wadaag